وبرنامج كيني وبرنامج كي عدو دسوق سنة كابتن كاي سبورتس كقلبتنا برنامج كوحة ستة لانتاليا إذا كوسو بالبنية لولو شالو يعني جو عبد القادر بوصة كبر شوعة كابتن كاي سبورتس كا وكولا كدل انت ما انت هايسكرين انتي كربا يوسن كوغوردين كلمة هنا قصل كا كلا القا صحو أرك برنامج كابتن كاي سبورتس كوا برنامج أحلى وتصوغ لا تدوذ في النمو ساعة جيس كأفريقيا كابتن كدم الجديد حسن الشيخ محمود أي حكمية أود هذا الكحدقة حفال ثمان حلي يسودو ذهاي ولا حد رشد مضحتني فيفا دوقان اسكقوسله حليده وحتى هنجبيو أي عديي إن عدو ذكوات ماركا لقي ماذا الشباب أيهين كوا كبان شيغا بول بوسيشن ككل ماذا أي عيارتو كوحدي صدموا الجديد حدقها صلاة علي جلاء فقي يترسن أي دمانتو تاوني سفرينتان ما دام انت بدن صحافة وحكا ويديسو aragtidooda sports quburada waxa doorasta ayaana filaysa in xidiga daahir isbitaal uu soo dari doono hanjabaadan si iskiis ah markalena kooxda aan natiijada geemka kala jecleen ee shabaab ayaa qaab ciyaareedka weerarka ee 4-3-3 shalayta kula ciyaaray koox ka tirsan Blazeka qaranka Kenya ciyaar ka dhacday gigida Deaf Stadium ee dhacda waqooyi bari ee dalkaas kooxda Blazeka Kenya ayaana soo dhaafi kari waayay xeyndaabka goolhayahooda daqiiqadii 9aad ee ciyaarta ayna si kadis ah uga boodeen jaranjarada qaybta taageerayaasha taasoo fursad weyn siisay kooxdan 8 jirada dheelsiisay shabaab kuwaas oo gudaha u galay qolka dharbedelashada kana qaatay dhammaan agabkii sportska ee keedka u ahaa kooxdan suurtagalka tahay in abtiyaashan ku jiraan maadaama aan wajiyadooda la aqoon ayaana ka soo kabsanaya guul daro 7-3 ahayd ee ka soo gaartay xulka Ethiopia kulan ka tirsanaa tartanka Ramadaanka oo ka dhacay gigida halgan ee gobolka Hiiraan xiddigta farxiye kabayar ayaa si weyn uga dhex muuqatay tababarka xiddiga ay isku reerka yihiin Feska iyo Hanuuniye kuwaas oo isku diyaarinayay kulan ciideedkii ka qabsoomay garoonka City Plus oo ay dhexdhexaadinaysay laacibada aan xamar ku dhexlaafiyoon karin ee Muna Cumar Xasan isla ceeshadaas taageerayaasha reer Muqdisho ayaa ka wararayay xiddiga Hodan Cabdiraxmaan Mursal Muuse iyo Nimcaan Hilaa walow kulankaasi uu baaqday cimilada fanka oo aad u xumeed habeenkaas laakiin kabayar ayaa aaminsan in fashilka kulankaasi ay lahayd مسؤوليتيسا تاسو عركة دحداليساي دادكا تاغيري حديكتا ستينتا u jarata isteelka naani sidoo kale xiddigta Jamaad Jesto ayaa qayb ka ahayd kulankan inkastoo aan baasaskeeda loo qorin maadaama aysan qayb ka ahayn xiddigaha u diiwaan gashan UEFA ugu dambeyn laacibka Mursal Muuse ayaa afduub kula wareegay xiddigta caanka baxday Hodan Cabdiraxmaan taas oo heshiis waqti dheer ah kula jirtay laacibkeedii hore ee Alta ila lagu kalsoonaan karo ayaana inoo xaqiijiyay in xiddigan uu heshiiska u adeegsaday heerka toleysiga taas oo u saashay in laacibadan aan kooxna ku nagaan abidkeed nolosheeda u hibeysay 40 jirkaasi muuqiisu yar yahay labadan waaya arag ayaana haatan si wada jir ah ugu aalmiiteenaya aqal ijaara gudaha Nairobi si ay u sii xajistaan kaalintooda jacaylka Boorama News ayaana aaminsan in labadan laacib ee midkoodna aan xamaalan ay isla meel dhigeen in noloshoodu ay ku maareeyaan dakhliga ka soo xarooda bandhigyadooda mararka qaar sahal lagu banadi karo محمد آلتا يا ودا حاجود كله إنه جولستو كله جرا حديقة الرحمة الرازة سي بدلوا ناكسن وقنقطة لاعبة هذا عبد الرحمن تاسو عاجدة كبيستي جدا آلتا استاديوم حديقة بقولي استجاشن كيلو عيانا لجوه اللي كرا قيمة معقولة إن كستو أي آذو يرتاي الرجال إنه كله جولستو ترتن هير عالمي أداد لاعبة دان أو آذو يرسريسا dadka dhaliila aalta ayaana ku micnaya dalabkaasi fajaca mid uu isku hilmaamsiinayo xiddigtiisii nambarka 10aad ee Hodan Cabdiraxmaan taasoo haatan xiran maaliyadu uu caanka ku yahay Mursal Muuse
dhanka kalena laacibada Qadri Slim oo aad uga careysan kursiga keedka ayaa ku kalsoon helida xidiga aan kooxna u diiwaan gashnayn ee Cabdicasiis Kalaaji xidigtan loo xulan waayay kooxda heerka koowaad ayaana diyaar u ah inay dhinto mushaarkeeda iyadoona beeca horta ah kula midoobi karta laacibkan aan habeenkii xitaa dhigan oo kiyaalihiisa Hargeysa Times ayaana fahamsan in xidigtan ku wareersan sababta loo cidleeyay ee carad daraadeed gorgorinaysa halyay walba oo u ballan qaadi kara booskeeda joogtada ah qodobka toddobaad ee FIFA ayaana qaba in dib loo eegi karo heshiis walba oo xanaaq lagu saxiixo taas oo fursad siinaysa xidigtan iyo sidoo kale Alta oo labaduba saxiixay heshiis ay ku cilbaxayaan xidigtani macadreen ayaa heshiis rasmi ah la gaartay laacibka Axmed Wali Furle sida ay qabtay Jigjiga Football laacibka Furle ayaa dhowr jeer kula alamiitay xerada tababarka xidigtan uu qoodiye Cabdiile inta lagu guda jiray bilowgooda xaajoodka laacibkan aan saameynta badan ku lahayn kooxdiisa xidigaha geeska ayaana iska fasaqay heshiis muddo dheer oo kula jiray laacibadiisa da'da yar ee Asmalof markii iska diiday in badal loo isticmaalo xilliyada dhaawaca ama ganaaxa ku maqan tahay xidigta saxaafada loo soo bandhigay haatan ee macdareen markan oo diyaar garooba xubintani baafinta waxaa la baafinayaa duqii hore ee gobolka Banaadir Tarsan markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in shirqool dil ah ay u maleegayaan kooxda Damojadiid isagoona aqalkiisa isku soo xiray haddaba cid allaali cidii aragtay xidigaasi ku qafiifay in lacagtii qaranka la lunsaday waxaad wax ka weydiin kartaan sida uu maareeyay dakhliga gobolka intii uu xilka hayay haddii uu wareysigaas diidana waxaad baskooladaha caruurta ku ciidaan ka ridi kartaan daaqada aqalkiisa isaga durba wareysi uu kaga cabanayo in Damojadiid dil rabtay saxaafada la soo doonan doone baafinayaa laacibkii hore ee Kaaraan iyo xulka qaranka Soomaaliya Muuse Suudi Yalaxow markii cid ugu dambeysana wuxuu aaminsanaa in canshuurta sportska ay tahay waajib qaran haddaba cid alaalay cidii aragtay xidigaas aan kala jeclaan jaga wasiir waxa laga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xafiiska duqa magaalada Muqdisho haddii uu salugana waxaad laba bir oo leeja aruurina ka taagi kartaan isgooska jira wacbuudan isaga galar amal kor ka soo digi doonee intaas ayaynu ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeeni kaftanka sportska galabtana barnaamijka waxaa si wada jira idinkugu daadihinayay Luul Shaaluuy anigoo Cabdiqaadir Boos barta aan ku leenahay Facebook ayaana ka daalacanayseen halku dhigan waa lagu xanto lagu xasuusta ayaa ka horeysa waa baada barnaamijka isku duuban oo idin la gaashaankiina noloma keena dooqa dhagaystuuna waa Sirshiin Cadde from London heesti naxalli caashaq waayadan muxuu igu nastaayo hani UK daawasha wacan نحلي عاشق وايدا محو إيقو نستايو نفتقي لكويو انتو ناديقا إلى دعاي تنقاسدين انتو نارا إذا شداي إذا ديقا سيدين وقول على النور سوا